kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada qiimaha badan halkan waa Bulsho Sports TV markan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha Bulsho Sports TV qodobada hadii ayna waxa kamid ah Joan Laporta ayaa xiisaanaya xidiga Matias hooyada dhashay Ronaldo ayaa shaacisay in wiilkeeda sanado kale ciyaari karo heshiiska cusub ee Lionel Messi ayaa dib u dhac ku yimid Man United ayaa doonaysa qiimo dhimis ku aadan Sancho kooxaha Chelsea iyo Man United ayaa u dhaqaaqay Sergio Ramos Liverpool ayaa qarka u saaran daafaca Chelsea Romero intaasi waxaan qodobadii warka hatan ku soo dhawaada asagoo faahfaahsan Joan Laporta ayaa xiisaanaya xidiga Matias daafaca reer Holland ayaa ku biiray kooxda ka dhisan Serie A ee Juventus markii uu ka soo dhaqaaqay Ajax sanadkii 2019 Leighton Spurs ayaa sheegaysa in kooxda reer Catalan ay dib ugu soo cusboonaysiin doonto xiisaha ay u qabaan 21 jirkan si uu markale ula jaan qaado Frank de Jong garoonka Nou Camp Barcelona ayaa doonaysa inay u soo bandhigto weeraryahanada reer France Antonio Griezmann ama Ousmane Dembele heshiis toos ah isdhaafsi ah iyadoo loo maleynayo in wararka Talyaanigu sheeganayaan inay Juventus aysan doonaynin inay isdhaafsadaan xidiga kaliya ay u baahan yihiin lacag cadaan ah De Ligt ayaa 36 kulan u saftay dhammaan tartamada oo dhan kooxda Juventus xilli ciyaareedkii hore iyadoo kooxda ka dhisan Turin ay soo martay xilli ciyaareed liita hooyada dhashay Ronaldo ayaa shaacisay in wiilkeeda sanado kale ciyaari karo warbixintaasi waxa ay Maxamed Ibrahim Bibaye hooyada dhashay ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa kalsooni xooggan muujinaysa iyadoo ku tilmaamaysa wiilkeeda in uu sii ciyaari karo sanado kale kubadda cagta waxaan aad ugu faraxsanahay waqtiga kan xaadirka in dhagahaygu ay soo gaaraan qaar ka mid ah kooxaha kala duwan qaaradda Yurub oo wali aad u haminaya saxiixa wiilkeyga waan ku faraxsanahay waqtiga kan xaadirka in wiilkeyga uu yahay xidiga sii hayn kara sanado kale kubadda cagta Cristiano Ronaldo ayaana toddobaadkii ugu dambeeyay waxa la xusiyay in uu diyaar u yahay ka dhaqaaqista kooxda kubadda cagta Juventus ee ka dhisan horyaalka dalka Talyaaniga maadaama laacibkani hadda uu gudanayo waajibaadkiisa xulka qaranka wadankaasi Portuguese tartanka Euro 2020 Cristiano Ronaldo ayaa si weyn kaga dhex muuqday kulan ciyaareedkii xulka qaranka Portugiiska oo ka adkaaday xulka Hungary taasi oo ay suurta gashay Cristiano Ronaldo in laba gool marka uu ka dhaliyo Cristiano Ronaldo ayaa sidoo kale la xiriirinaya dhowr kooxood oo ay kamid ahaayeen Paris Saint-Germain iyo Manchester United xaqiiqdii wiilkeyga jir ahaan uu dhisan yahay maskaxaana aad ayuu u sareeyaa sidaas darteeda waxaan diyaar u ahay inaan arko inta aan nool ahay wiilkeyga oo kubadda cagta ku sii guda jira inta badan warbaahinta dalka Talyaaniga ayaa aflagaado u geystay Cristiano Ronaldo kaasi oo ay ku tilmaamayeen inuu dhamaado waqtigiisa kubadda cagta hooyada dhashay ayaa xiriir dhow la leh markii loo eego kooxaha kubadda cagta Manchester United iyo Paris Saint-Germain waxaana loo maleyn karaa in ciyaaryahankan midkood uu ku biiri karo PSG ama Manchester United heshiiska cusub ee Lionel Messi ayaa dib u dhac ku yimid warbixintaasi waxa ay eegaysaa Qamar Maxamed Cumar Lionel Messi qandaraaskiisa cusub ee Barcelona ayaa dib u dhac ku yimid sababo la xiriira xaaladda dhaqaale ee kooxda waxaana Catalanis ay u baahan tahay inay iibiso ciyaartoy ka hor inta aysan hubin mustaqbalka kabtaankooda sidaasi waxa yiri Joan Laporta xidiga Barcelona ayaa la filayaa inuu sii joogo Camp Nou 12 bilood kadib markii uu ciyaaryahanka reer Argentine uu u gudbiyay codsi ah inuu ka tago kooxda iyadoo Messi la fahamsan yahay inuu qandaraas cusub oo 2 sano ah uu u saxiixayo kooxda xilli ciyaareedkan laakiin madaxweynaha kooxda Barcelona ayaa ku adkeysanaya in kooxda ay waajib ku tahay inay ixtiraamto sharciga dhaqaale ee UEFA kooxda Barcelona ayaa horay ula soo wareegatay labada xidig ee Manchester City Eric Garcia iyo Sergio Aguero iyadoo si bilaash ah kula soo saxiixday laakiin waxa ay ku fashilmeen saxiixa xidigii hore ee Liverpool Wijnaldum oo ku biiray PSG dhanka kale sida Anton Griezmann Philippe Coutinho iyo Junior Firpo ayaa la filayaa inay ka tagaan Camp Nou xagaagan Man United ayaa doonaysa qiimo dhimis ku aadan Sancho Manchester United ayaa sida laga soo xigtay Sky Sports wali rajo ka qabtay inay gacanta ku soo dhigaan Jadon Sancho in ka yar qiimaha waatan jooga xidigan Borussia Dortmund ayaa dalbanaysa qiimo dhan 90 milyan ay ku doonaysa ciyaaryahanka reer England laakiin Red Devils ayaa doonaysa inay hesho qiimo dhimis u muuqda bishan dalabka Sancho Jadon Sancho ayaa shakhsiyan doonaya inuu ku biiro Manchester United xilli ciyaareedkan
balse waxuu rajeynayaa inuu soo dhammaan doono wax walba oo heshiiska quseeya waqtigan. Kooxaha Manchester United iyo Chelsea ayaa u dhaqaaqaya Sergio Ramos. Warbixintaasi waxaa eegaya Xuseen Cumar Xuseen. kooxaha Chelsea iyo Manchester United ayaa haatan u qalab qaatay Sergio Ramos kadib ka bixitaankiisa Real Madrid. Kooxaha Premier League ayaa isha ku haya xaaladda Sergio Ramos waqtigan. difaaca reer Spain ayaa si rasmi ah uga tagaya kooxda ka dhisan La Liga ee Real Madrid sida ay maamulka Real Madrid ay cadeeyeen. Ramos ayaa 671 kulan u saftay Real Madrid isagoo u dhaliyay 101 gool waxaana uu la soo qaatay koobab muhiim ah Real Madrid sida laga soo xigtay Daily Express. Chelsea iyo Manchester United ayaa laga yaabaa inuu u dhaqaaqo Sergio Ramos. Liverpool ayaa qarka u saaran daafaca Juventus Romero. Warbixintaasi waxaa eegaya Maxamed Ibrahim Bibaye. kooxda kubadda cagta Liverpool ayaana markaa rajeynaysa inay xoojiso dalabkeeda ku aadan Christian Romero maadaama toddobaadkii ugu dambeeyay bal xusay in Manchester United ayana ay ku soo biirtay dalabka ku aadan ciyaaryahankaasi. xidigan u dhashay dalkaasi Argentina ee Christian Romero ayaa wacdaro xoogan ka muujiyay muddadii amaahda uu kula joogo kooxda kubadda cagta Atalanta xil ciyaareedkii hore. 23 jirkani ayaana awood ahaantiisa ismuujiyay inta uu ciyaaraya kooxda kubadda cagta Atlanta. waqtiga xaadirka waxa ay kooxda kubadda cagta ee Juventus doonaysaa inay markaa u gacan geliso kooxaha ka dhisan horyaalka wadankaas Ingiriiska ee Premier League. waxay daawacaysaa kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo Manchester United inay yihiin kooxaha waqtiga xaadirka ee markaas soo istaagay albaabka hore dalabka ku aadan ciyaaryahankaasi ee Christian Romero. Liverpool waxay diyaar u tahay inay bixiso adduun lacageed gaaraya 43 milyan oo ay markaa ku qarash gareyn doonaan ciyaaryahankaasi Christian Romero waxaana ay doonaysaa xidigaasi inay ku xoojiyaan kooxda xil ciyaareedkan cusub ee horyaalka wadankaas Ingiriiska. halka Manchester United ayana ay doonayso inay shakada ciyaaryahankaasi ay soo gabagabeeyaan inta aysan la wareegin kooxaha kale ee aadka u ciirsanaya dalabka ciyaaryahankani ee Christian Romero. intaan ku soo gabagabeynaa wararka ciyaaraha Bulsha Sports TV aniga Amun Cusmaan waxaa idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.